بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socotay dalkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo tabin ku saabsan barnaamijka qubanaha Barrow Show qodobadan caawa idinkugu hayana waxa kamid ah baarlamaanka Israa'iil ee kaniisad lagu magacaabo ayaa meel mariyay qorshe caalamku aad uga baqayo ku saabsan arrimo la xiriira maxaabiista ay gacanta ku hayaan ee ka soo jeeda Falastiiniyiinta taas oo ku saabsan in haddii lagu helo dambiye ay ka mid yihiin duminta qaranka Israa'iil iyo waliba geysashada dilal ay wajahi doonaan in la toogto iyadoo aan khiyaar kale la siin doonin garsooraha kiisaskooda gacanta ku haya haddaba arrintan yaa ka dambeeya oo dabada ka reexaya sidaas caalamka uga jawaabay warbixin ayaan idinkaga hayaa arrintaasi oo aan si gaar ah ugu falanqayn doonaa madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa ku baaqay in waqti kooban uu haray ninka lagu magacaabo Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha wadanka Venezuela oo ay hadda si weyn isku hayaan waxa uu ku baaqay in inta ay goor tahay uu ka joogo tacadiyada uu ka geysanayo qaaradda Amerika ee ku saabsan dhoofinta droogada iyo waliba waxyaabaha amniga Mareykanka taaban karaya dhinaca kale madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa ku baaqay marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan Israa'iiliyiinta inay tahay mid aan xilligan suuragal ahayn in la aqbalo iyadoo Israa'iilna caawa ay sheegtay inay kordhin doonto dhismaha ciidamadeeda xilli Netanyahu uu sheegay in la joogo waqtigii laga hortagi lahaa isfidinta wadanka Turkiga ee gobolka Bariga Dhexe loolanka labada dhinac ayaa u muuqanaya inuu iminka sii xoogeysanayo dowladaha Turkiga Masar iyo Sacuudigana waxa ay gaarayaan iskaashi ku saabsan dhinaca ganacsiga maadaama loolanka isbedelka adduunka uu saameyn weyn yeelanayo xilligan oo uu gabadhacleynaya xasiloonida amniga dagaaladuna ay suuragal tahay inay faafaan ikhyaar soo dhawaada qodobadaas ayaan ku faaqidayaa barnaamijka Cabdicasiis Barrow ayaan ahay waxaad daawanaysaan Barrow Show meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara wad maasantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabayo kordhinta iyo ballaarinta ciidamadiisa kadib markii xaaladda gobolku ay ula muuqatay mid aan la aqbali karin xilligan sida ay ku socoto saameyn ku yeelanaysa amniga Israa'iil ee gobolka Bariga Dhexe si gaar ah waxa uu arkaa ciidamada Turkiga ee isballaarinaya wax soo saarka warshadaha Ankara oo cirka galay xagga militariga iyo waliba saameynta Turkiga xagga diblomaasiyadda iyo ammaanka uu ku yeelanayo caalamka iyadoo dowladda Mareykanka iyo Erdogan ay saaxiibo noqonayaan taas oo Israa'iil u aragto dhimasho degdeg ah oo nidaamkeeda dowladnimada ku saabsan Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo wajahaya culaysyo siyaasadeed oo gudaha waxa uu ballaarinayaa ciidamadiisa joogtada ah iyo kuwa kaydka si weyn oo xoogan iyo waliba si xeeladaysan ayaa lagu yiri qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil war ay sii daayeen Netanyahu ayaa isniinta ku dhawaaqay in dowladdiisu ay qorsheynayso ballaarinta ciidamada joogtada ah iyo kuwa kaydka ee loo yaqaano ciidamada gaarka ah si weyn oo nidaamsan oo qiimo u leh baa la yiri hanaanka jiritaanka dowladnimada Israa'iil Netanyahu ayaa hadalkan ka jeediyay kulan uu la yeeshay hogaamiyaasha sare ee ciidanka kaydka Israa'iil sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa iyadoo aan la carabaabin xilliga iyo goorta rasmiga ah ee kulanka Netanyahu uu dhacay qoraalka waxa lagu yiri ciidamada kaydka mar kale dib loo abaabulay waxay ka yaabiyeen cadawgu waa nagu qaldanaa haatanna waxay dareemeen xaqiiqada dhabta ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedka inta la raaciyay ciidamada kaydka waxa ay lafdhabar u yihiin jiritaanka ciidanka qaranka Israa'iil waxa loo baahan yahay in ciidamo ballaaran oo xooggan la dhiso isla markaana caqli iyo xeelad leh si ay u baabi'iyaan cid kasta oo Israa'iil gardaraysanaysa halkaas oo lagu qariyay hadallada ka soo baxaya Turkiga iyo diyaar garowga ciidamada Atrakta waxaan ballaari doonaa ciidanka joogtada ah sidoo kale waxaynu xoojin doonaa ciidanka kaydka ayaa lagu yiri faahfaahin arrintan ka soo baxday waxa la og yahay 100,000 oo askari oo kayd ah inay ka qayb galeen dagaalada Israa'iil ee ka dhanka ahaa Gaza, Lubnaan iyo Iran
sidoo kale Israa'iil waxa ay wali wadaa taageero xoog leh oo ay ku sameynayso ciidamadeeda si ay u sii ballaariso faragelinta Yemen, Syria iyo Lebanon, isla markaana isha ay ugu hayso dhaqdhaqaaqyada ka soconaya marinka Gaza. baarlamaanka Israa'iil ee kaniisad loo yaqaanana maanta waxa uu ku dhawaaqay inuu meel mariyay heshiis sharci ah oo halis gelinaya baa la yiri maxaabiista gacanteeda ku jira ee ka soo jeeda Falastiiniyiinta. arrintan waxaa soo jeediyay wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir, laakiin dib ayaa loo dhigay si looga baqo ama meesha looga saaro suurtagalnimada maxaabiista Falastiiniyiinta gacanteeda ku jira ee Israa'iiliyiinta ah inay la kulmi karaan aarsi. laakiin maanta ayaa tallaabadaasi la meel mariyay. telefishinka Al Jazeera oo xiganaya dhowr wakaaladood oo caalami ah waxa uu leeyahay baarlamaanka kaniisadda ee Israa'iil ayaa Isniinta oo November ay 3 ahayd sanadka 2025 ansixiyay akhrinta hore ee hindisa sharciyad ogolaanaya in la fuliyo xukun dila oo lagu samaynayo maxaabiista Falastiiniyiinta ee lagu helo dambiyada la xiriira dilka Israa'iiliyiinta iyo sidoo kale in ay qatar ku yihiin jiritaanka nidaamkaasi sida ay baahisay qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil. go'aankan ayaa yimid kadib markii guddiga ammaanka qaranka ee kaniisad ay yeesheen kulan degdeg ah oo ay ku codsadeen in loo gudbiyo hindisahaasi, kaas oo loo diray golaha guud ee kaniisad waa baarlamaanka loona akhriyo si uu ansixiyo heerarka sharci dejineed ee xiga Arbacada soo socota, taas oo hadda indhaha si weyn loogu hayo. kadib ansixinta hordhaca ah, wasiirka amniga gudaha Israa'iil ee Itamar Ben-Gvir lagu magacaabo ayaa u mahad celiyay ra'iisul wasaare Netanyahu oo wali wajahaya baa la yiri dacwadaha maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ah ee taageeraan dowlado fara badan, taas oo hadda u muuqatay in hindisahan uu u baneynayo tillaabooyin badan inay qaadaan. maxaabiis badan oo Falastiiniyiin ah ayaa gacanta ugu jira Israa'iil, waxaana ay gaarayaan 9,100 maxbuus, halka ay ku xiran yihiin baa la yiri ama ay ka mid yihiin maxaabiistaasi 400 oo carruur ah iyo 49 dumar ah. lama oga 9,000 ee maxaabiista ah inay wajihi doonaan dhibaatooyinkaasi, laakiin maalmihii ugu dambeysay warbaahinta qaar ayaa muujinayay wasiirkan hadda horgeeya baarlamaanka sharcigan oo ku goodinaya in ay wajihi doonaan ciqaab adag haddii hindisahaasi uu hirgalo. ma jira buu yiri caano, chocolate iyo rooti aan idin siin doono, laakiin dhegta ayaa dhiigga laydin dari doonaa, sida dhowr jeer oo hore uu ku soo sheegay hadal warbaahintu ay bannaanka keeneen. wasiirada ganacsiga wadamada Turkiga, Sacuudiga iyo Masar ayaa waxay doonayaan inay kordhiyaan mugga ganacsiga ay wada leeyihiin saddexdan dal xilli caalamka uu wajahayo qalalaase amni iyo waliba kuwa siyaasadeed uu aad u gabi dhaclaynayo. wasiirka ganacsiga Turkiga Omar Bolet ayaa maanta oo Isniina sheegay in Turkiga uu qorsheynayo kor u qaadista heerka ganacsiga iyo isdhexgalka dhaqaale uu la leeyahay dalka Masar iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya. bayaan uu soo saaray kulanka kadib uu la yeeshay wafdiyada labada dal ayaa wasiirkan waxa uu tilmaamay in kulamadu ay ka dhaceen dhinaca shirmadaxeedka 41aad ee guddiga joogtada ah ee iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ururka iskaashiga Islaamka ee wadamadaasi shirka ay ku yeesheen. xiriirka dhinacyadan ayaa lagu tilmaamay in uu yahay mid aad u ballaaran. wasiirka uu hadlaya waxa uu yiri waxaynu ku soconaa dadaal xoogan oo aan ku gaarayno yoolal aan ku kordhin doono mugga ganacsiga Turkiga iyo Masar, qiyaasaad lacag gaaraysa 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah 5 sano ee soo socota. iskaashiga Turkiga iyo Sacuudiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqonayay mid aad cirka isugu shareeray, iyadoo labada dhinac ay isweydaarsanayeen ganacsiyo aad u ballaaran. xitaa waxa ay sameeyeen mashaariic kala duwan oo ay iska kaashanayaan meelo kala duwan, taas oo muujinaysa in Turkiga uu haatan ballaarinayo ganacsigiisa meelo kala duwan oo caalamka. madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay weerarkii ka dhacay Al-Fashir, waxaana uu tilmaamay dowladaha dabada ka riixaya dagaalkaasi in ay ka joogsadaan intay goor tahay. Turkiga oo siyaasad la yaab leh isticmaalaya ayaa taageero u haya dowladda Burhaan, laakiin marka uu arkay xaaladdu inay faraha ka baxayso ayuu si tartiib uga siibtay halka Imaaraadku ay badweyn dabaasheen.
madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si adag u cambaareeyay xasuuqa iyo rabshadaha ka soconaya magaalada Al-Fashir ee waqooyiga dalka Suudaan isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dhiigga daadanaya lana dhowro muhiimadda dheeraad ah iyo madax-bannaanida qaranka Suudaan uu leeyahay. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uu si dhow ula socdo xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka Suudaan isla markaana uu weli doonayo inuu qayb ka qaato gurmadka bini'aadanimada. isagoo hadlaya waxa uu yiri waxaan ku celinaynaa baaqeena ku aadan in dhinacyadu ay muujiyaan isxakamayn iyo waliba inay mudnaanta siiyaan wada hadal iyo xal nabadeed ayaa arintaasi uu ku daray. Turkiga ayaa hore u diray gargaar caafimaad, raashin iyo waliba tendooyinka loo isticmaalo hoyga degdega si loo caawiyo dadka masaakiinta ah ee kooxda dacmiga ee Imaaraadku ay gacan siiyaan ay ku xasuuqeen magaalada Al-Fashir. ugu dambeyntiina madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa yiri maalmihii uu Maduro ku lahaa taliskiisu waa kooban yihiin waxaana ay iminka u muuqdaan in la gaaray waqtiyadii gabagabada. isagoo ka hadlaya CBS oo ah telefishin Mareykanka laga leeyahay, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray hadallo iskhilaafsan oo ku saabsan suurtagalnimada faragelin ciidan oo Mareykanku uu ku sameyn karo dalka Venezuela isagoo si toos ah ugu hanjabay madaxweyne Nicolas Maduro. waraysi uu siiyay CBS oo la baahiyay Axaddii ayuu Trump ku sheegay in maalmaha Maduro ay gabagaba yihiin, taas oo loo fasiray hanjabaado toos ah oo ka dhan ah hogaamiyaha Venezuela. madaxweynaha ayaa inkiray in ay qorsheynayaan dagaal buuxa oo ka dhan ah Venezuela, balse waxa uu tilmaamay in Washington ay ilaalinayso danaha Mareykanka iyo dadka Venezuela ee lagu dulmiyay xukunka dictatorka ah muddada dheer sida uu Trump hadalka u dhigay. hadalkan ayaa yimi iyadoo ciidamada badda Mareykanku ay sii xoojinayaan joogitaanka badda Caribbean-ka halkaasi oo dhowr jeer ay ku qaadeen weerar la sheegay in lagu bartilmaameedsaday doonyo kala duwan oo darooga siday. khubaro iyo saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa bilaabay in ay tilmaamay baa layiri mid ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah iyo madax-bannaanida Venezuela tillaabooyinka Mareykanka uu qaadayo. warbaahinta caalamiga ah ayaa sidoo kale sheegtay in hanjabaadaha isbarbar jooga ee Trump ee dhinac socda ay sii kordhinayaan xiisadda Washington iyo Caracas u dhaxeeya xilli Venezuela ay wajahayso xaalad dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aad u murugsan. ikhiyaaray tabinta qaybtan iyo qubanaha barrow show iyo faaqidaadda wararka adduunkana inta